15 bisha saddexaad baan soo galay wax lacag cash lacag waxaan watay 48,000 oo lacagta Kenya watay 11 kan dhalinyar la degay lacagti 3 bilood baan biilanay shaqana ma helin 3 bilood markaan biilanay meel 11 ka maqaayadaha yaryar ku yaala gaabgaabaydan ka cuntay jiray maqaayada Shabeelle agteeda ku yaalaan ka cunay jiray lacagti adoo isku dhamaatay 3 biloodna waa isku dhamaatay markii dambe waxa lacag yar baa gacanteeda ku soo hodhay tala igu ciirtay waad garanaysaa nin dhalinyaro oo magaalo uu ku cusub yahay imaaday oo ehel u joogin aabo u joogin adeer u joogin marka waxaan bilaabay maqaayadihii inaan galgalo koofilow adiga jiitay oo dunida joogayne jananadii hore hadaad jawhartii aragto sida eebahay ku jiray mari jawaabteeda daraawish jikaar nagama deyn tan iyo jeerkiide jigta weerar bay goor barqaa nagu jifayeen anigana jikray ilaahay lan shalay jihaadkiide magacaygu waa Abshir Maxamed waxaan ku dhashay muxuu ahaa Shabeellaha Hoose degmada Walweyn baan ku dhashay muxuu ahaa 1988 baan dhashay waxaan ku soo barbaaray muxuu ahaayay noloshada qayb kamid waxaan ku soo qaatay gobolka Soomaali galbeed ama Soomaalida Itoobiya ama ogaadeen loo yaqaano waxaan kale wax ku soo bartay muxuu ahaa qaxootiyada xiriyaha qaxootiyada dhaab hadda waxaan ku noolahay markaan Kenya mid waxaan ka soo bilaabay xiriyaha qaxootiga dhaab baan ka soo bilaabay xirida qaxootiga xagar dheer halkaas aan iskuulkayga ku soo bugay waxbarashada aan wax ku bartay waxaan ka soo shaqeeyay hay'adda loo yaqaan IRC International Rescue Committee baan ka soo shaqeeyay sanadkii 2000 iyo muxuu ahaa 10 ilaa 2013 xiriyaha qaxootiga waxaan ku soo qaatay noloshayda qaybtii ugu wanaagsaneed baan ku soo qaatay ugu muhiimsaneyd sida qaybtii ardaynimada waa meesha aan wax ku bartay waa meesha luqadda Ingiriiska iyo academiga aan ku bartay noloshayda qaybtii ugu muhiimsaneed baan ku soo qaatay ardaynimada waxaan ku noolay xiriyaha qaxootiga Ifo waxaan sidoo kale ku noolaan jiray xirida qaxootiga xagar dheer oo igu dambeysay kadib waxaan Itoobiya ku laabtay haddana waan ka soo noqday xiriyaha qaxootiga runtii wallahi duruufo adag baa ka jiray laakiin si markii loo fiiriyana waxa weeye dadku raashinka way iska haysteen cunada iyo biyaha free ay haysteen oo muxuu ahaa xataa sheltering wax la dhaha jiray oo guryaha loo dhisi jiray hay'ada guryaha u dhisaa jiray alwaaxdii waxa la sii jiray jiingadaha iyo teendooyinka marka xiriyaha qaxootiga xaaladoodu way adkayd dhanka ammaankana way iska jireen xiliyo duruufaad ay ka jireen sida 2011 2012 2013 labaduba abaal baan uga hayaa waayo Soomaaliya markii ay burburtay dalkii soo dhaweeyay ama dhulka lagu soo dhaweeyay Kenya oo ahaa gaar ahaan waxa weey dhulka la baxay North Eastern loona yaqaan jiray NFD waagi hore labada dhinac abaal baan uga hayaa mahadnaq baan uga hayaa sidoo kale beesha caalamka oo ay u weynayd hay'adda UNHCR u qaabilsan qaxootiyada sidoo kale waa mahad baan uga hayaa dawladda Kenya waxa weeye maangeliyo iyo deegaan u fidisay soo dhaweysana waan u mahad celinayaa laakiin ma hadda ugu weyn waxa iska leh hay'adaha oo dadku waxa weeye wixii basic ama muxuu ahaayay asaasiga ah sida waxa weeye hoyigi iyo cuntadii hoy cuntaba u fidiyay dadkii Soomaaliyeed ee ka soo qaxay Soomaaliya marka labada dhinacba abaal baan uga hayaa labada dhinacba waxa weeye mahadnaq bay naga mudan yihiin waayo waxbarasho free ah baan ku haysanay waxaan ku haysanay cunno bilaash waxaan ku haysanay hoy bilaash wax kasta waxay bini aadamku u baahan yihiin oo bilaash aan ku haysanay in kasta aynan dhameystirayno heerkii loo baahnaa inay gaarsiisnayn wajirta xiriyaha qaxootiga xilliga la soo galay waxa jiri jiray ilaa waad ogtahay qaxootiga Dadaab refugee camp wuxuu dhinaca ku hayaa xuduudda Soomaaliya dhinaca ku haya oo Doobley uu daris leeyahay xuduudka dheer ee Soomaaliya waxa jirtay waxa weey maleeshiyaadka Soomaaliya xilliga ka dagaalamay ee jabhadihii Soomaaliya ka jiray North Eastern dariska laaha way soo gudbi jireen hubkii baa markuu soo shuftaa soo gali jirtay marka qaxootiguna hay'aduhu waxay sameeyeen bolod baa loo kala xiray bolodkii waxa lagu wareejiyay silig baa bolodkaas lagu dayray haddana waxa loo yeelay laba ilin kaliya laga baxaa bolodka hadii raashin la doonay hadii la arooranayo bolodkaas hal ilin buu ka baxaa hal ilin waa laga soo galaa marka waxa dhici jirtay markay shuftadu soo gasho iyagoo qoryahooda wata reer bay u dhacayaan reerkii markay u dhacaan ilaan cid ku dhiiran karta rag qori wata oo ku ordi karta ma jirto caagada la garaacay gow saawal isku soo bixi markay shuftadu aragto waxa weeye bologii dhanaa inuu soo baxay bay markaa kadib cararayaan qoysku waxay yeeli kareen intay yeelaan waxay kufsan kareen bay kufsanayaan waxay gamcayn kareen bay gamcaynayaan markay saa yeelaan kadib bay carari jireen oo ay dareemaan dadkii oo dhan bolodka
inay isku soo wada baxeen marka dhacdooyinkaasan aad u xusuustaa oo shuftada aad waxa weeye qaxootiga u baaran jirtay oo qoysasku soo dhici jirtay marka waxaan kale aad u xusuustaa qaxooti fara badan baa xilligii 2006 soo galay qaxootida oo aan joogay oo Soomaaliya markii waxa weeye dagaaladii muxuu ahaa ay ka dhaceen maxaakimta iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay dagaaleen iyo madaxweynaha ku Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariiste qaxooti badan baa koonfurta Soomaaliya ka soo galay oo badankood waxa weeye xamar ka soo qaxay kuwaana waan xusuustaa waxa kale oo aan xusuustaa farxad lahayd maalinka Isniinta iyo maalinka Talaadada baa dadka falaydka ee dib u dejinta UNHCR ay siisay waxaan wadamadan reer galbeedka ay siiyeen sida Mareykanka iyo Australia iyo Canada waxay bixinayeen oo ilaa hadda ay bixiyaan wax la dhaho resettlement dib u dejin bay qaxootiyada siin jireen marka maalinka Isniinta baa qaxootiyada Nairobi laga duulinayo maalinka Isniinta la qaadi jiray iyo Talaadada marka qoys kasta maalinkaas waxa weeye wuxuu kareysanayaa gaariga matatuuda loo yaqaano ama reer Soomaaliya u yaqaanaan homemade ama caasiga buu kareysanayaa boloodkii 20 sano dadka ay boloodka wada deganayeen ee dariska ay ahaayeen baa kulli la soo daldali meeshii basaska ay ka qaadi lahaayeen baa sawirro lagu gali jiray halkaas la isku miraadaa muxuu ahay la isku hagareyn jiray marka waxyaabaha farxadda aan xusuustana waxay ahayd maalinka Talaadada Isniinta maalin kasta laba bas oo muxuu ahay dada oo loo wada America iyo Canada iyo Ingiriiska Australia loo wado baa xerada qaxootiga ama Ifaa Maxadeer laga qaadi jiray oo basaska waaweyn ee noocaysan ka shaqeysa taana waan aad baan u xusuustaa dhacdo xanuun la jirtay xilli waxaa jirtay xerada qaxootiga Xaadheere cunug yar oo waxa weeye oo kuray oo yar muxuu ahaay la qashay oo beerkii lagala baxay marka waxaa deganaa qolyo Suudaaniis ah xerada qaxootiga Xaadheere deganaa Soomaalida qaxootigeeda ahayd ee deganida dhan baa ku kacday guryahoodii bloodkoodii oo dhan baa dab la qabadsiiyay oo la gubay markii waxa weeye hay'adihii dawladda Kenya u soo gurmatay waxa loo raray Xagadheer iyo dhagaxley baa loo raray qisadaana waan xusuustaa oo ilmihii beerkii baa lagala baxay bay dadku lahayd Nairobi horta markaan soo galay muxuu ahaay 2015 bishii saddexaad baan soo galay wax lacag cash lacag waxaan watay 48,000 oo lacagta Kenya watay 11 kan dhalinyar la degay lacagtii 3 bilood baan biilanay shaqana ma helin 3 bilood markaan biilanay meel 11 ka maqaayadaha yaryar ku yaala gaabgaabaydan ka cuntayn jiray maqaayada Shabeelle agteeda ku yaalaan ka cunay jiray lacagtii adoo isku dhamaatay 3 biloodna waa isku dhamaatay markii dambe waxa lacag yar baa gacanteeda ku soo hadhay tala igu ciirtay waad garanaysaa nin dhalinyaro oo magaalo uu ku cusub yahay imaaday oo ehel u joogin aabo u joogin adeer u joogin marka waxaan bilaabay maqaayadihii inaan galgalo oo aan weytinimo aan weydiiyo oo maqaayad kasta la dhaho waxa weeye lambarka la iga reebo la dhaho waa lagu soo qabanayaa contact la iga reebo laakiin shaqana si wanaag kama helin maalinkii dambe lacag yar oo igu soo hadhay oo aan filay inay ahayd lacag 1500 shilin baan la aaday suuqa la baxay muxuu ahaayay hudheeda lagu gaday Kikombay baan la aaday shaarar baan ku soo qaaday aan u maleynay inay ahaayeen 13 shaati meesha hudhuumaada horteedaan dhigay 3 bari markaan shaararka dhigay oo hal shaati laga gadan waayay baa maalinka dambe waxa dhacday hudhuumaada anigoo shaararkii soo wada ku soo socda nin kale oo madow meesha asla shaarar dhar u yaalay haanti inay qaraxdo transformerka ku yaalay meesha haanti markay qaraxday aniga waan qaraacmay waa isaga carray magaalada dhinac ka galay muxuu ahaay 11 iyo 12 ka hoteelo ku yaalaan galay shaararkii aan waday laba shaati oo kamida laba oday baa iga qaadatay oo 200 shilin aan ka siiyay markii gobolku dhacay oo waagu ii bariyay habeenkii waagu bariyay yaan magaalada iska galay waxaan soo aaday dhanka Al-Hidaaya waxaan ku arkay niman isnaqaanay oo aan isku reerna aan nahay oo meherad u furay ninkii waa sida shaqo igu siiyay oo shaqadii aan ku bilaabay Nairobi marka waxa weeye dhacdadaas kala soo kulmay oo howkaaska waxaan ku jiray muxuu ahaayay dhowr iyo 10 bari baan hudhuumaada hoosteeda aan shaarar la hoos fadhiyay wixii ugu mucjisay badnaa ay soo maray waxay ahayd muddo hal sano ka badan in aanan masaajid ku tukanin muddo hal sano ka badan ama hal sano dhan waa xilli corona shakhsi ka qabsatay laakiin waxa weeye ani nin weyn baan 30 jir baan laakiin wax hore ii soo maray waxaan arkay ma 30 sano masaajidda la xiray islaan aan islaaminin muxuu ahaayay salaad jamco waxa weeye hal sano ku dhawaad aan la tukanin masaajidii oo xiran Nairobi baan kala kulmay mana rajaynay kadib inaan u arki doono horteedna inaan arkay
suugaanta runtii waan jeclahay heesaha iyo gabayada aad baan u dhageystaa siiba anu suugaanta de suugaan marka dhalinyarta maanta joogta suugaan markay maqlaan qalbigooda hees baa ku soo dhacday iyo music suugaantu hees kaliya ma aha gabayaa jira tix baa jirta tiraab baa jirta buraanbur baa jira heesaa jira kuwa geela loo qaadaa jira waxaas oo dhan baa suugaan la isku dhahaa suugaan waa waxaas oo dhan baa la isku dhahaa macnaha suugaantu ma aha hees kaliya marka wax oo dhan suugaanta Soomaaliyeed oo dhan baan jeclahay gabayadan dhageystaa akhriyaa aniga xagga gabayada markii laho waxaan ugu jeclahay Sayyid Maxamed Cabdullaahi Xasan gabayadiisa aan ugu jeclahay waxaan ugu jeclahay gabigiisa Koofil baan ugu jeclahay oo ahaa ninkii haystay boqortooyada Ingiriiska ee u wakiilatay ama taliyaha u ahaa Royal Guard Ingiriisku ahaa boqoradaas taliya ay soo magacooday buu ahaa ay soo dirtay haddana wuxuu u qaabilsanaa East Africa ninkaas oo ka takhalusay ma ahayn nin Soomaali kaliya loo soo diray Richard Koofil gabaygii uu ka dulqaaday meydkiisa kurkiisa oo go'an markii loo keenay Richard Koofil gabaygaas aan ugu jeclahay gabayada Sayyid Maxamed Cabdullaahi Xasan inkastoo aan la kala dooran karin gabaygaas waa fara badan yahay wuxuu ku bilaabanayay Koofilow adiga jiitay oo dunida joogayne jananadii hore haddaad jawhartii aragto sida eebahay ku jiray mari jawaabteeda daraawiish jikaar nagama deyn tan iyo jeerkiide jigta weerar bay goor barqaa nagu jifeeyeen anigana jikray ilaahay la shalay jihaadkiide jikray wuxuu qori xilliga jiray oo mar dhac u ahaa automatic machine iska dajiraan ahayn anigana jikray ilaahay la shalay jihaadkiide jeeniga hortiisa rashaas iga joojeen ma fahamta gabaygu inahaasaan ka xusuustaa heesaha waan jeclahay waliba heesii hore qaraamigan jeclahay fanaaniinta hore dhan waan wada dhageystaa anu fanaan aan waxa weeye aan gaar u jeclahay ma jiro fanaaniinta dhan waan wada dhageystaa gabdhaha wiil waan wada dhageystaa Axmed Boogaan jeclahay Gaacaytaan jeclahay Xasan Xasan Talmaan jeclahay Maxamed Salebaan Tuweec Cabdi Tahliil Warsame fanaaniintaas dhan waan dhageystaa sidoo kale gabdhaha kale Saare Axmed baan u jeclahay codkeeda sidoo kale waxaan jeclahay muxuu ahay Maryam Mursal aad u cod macaan ciyaaraha kuma fiicni siyaasadda kaga fiicanahay